dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay halganka SSC qaatumo qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah dagaal toos ayaa goor dhaweyd ka qarxay aagga maraaga ee saldhigga Goojacde. dagaalkan waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan waxa uuna u muuqdaa inuu yahay dagaal aad u qaraar oo kamid ah dagaaladii ugu adkaa ee maalmihii la soo dhaafay dhacay. garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee deegaanada SSC ayaa waxa uu kaga dhawaaqay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka SNM ay iska kaashanayaan duqeynta Laascaanood. waxaana sheegay in Laascaanood ay leedahay saraakiil ciidamo iyo dhalinyaro mar walba u taagan in ay u dagaalamaan, taas oo muujinaysa sida ay ugu diyaarsan yihiin dhinacyadan tillaabooyinka gaarka ah iyo sidoo kale qaabka ay doonayaan in ay u soo afjaraan wax walba oo muujinaya deegaanka iyo sidoo kale wax wada lahaanshihiisa. taas ayayna ku sheegeen inay tahay arinta ugu muhiimsan ee hadda dagaalka keentay. ciidamada xaquudirka ah ee SSC ayaa soo bandhigaya awoodooda gaarka ah iyo sidoo kale qaabka ay u doonayaan in gabi ahaanba ay meesha kaga saaraan wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa naflacaariga ah ee nidaamka SNM. dagaalku waxa uu qaadanayaa waqtigiisii ugu dheeraa waxaana u muuqdaa in uu yahay dagaal aad culus oo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, taas oo muujinaysa sida xaaladdu ay u sii adkaanayso iyo sida dhinac walba uu doonayo in dagaalka uu xoojiyo. saraakiil ka tirsan ciidamada xaquudirka ah ee SSC ayaa warqabad TV u sheegay in dagaalku saaka uu ka duwan yahay dagaaladii la soo dhaafay. waxay sheegeen in barqanimadan uu bilowday isla markaana marka la fiiriyo awoodda la isku adeegsanayo ay tahay mid aad u xooggan. saraakiisha xaquudirka ayay sheegeen in awoodii ugu cuslayd iyo hubkii ugu cuslaa ay geeyeen aagga maraaga ayna u diyaarsan yihiin inay ka jawaabaan isku day walba iyo dhaqdhaqaaq walba oo ciidamada naflacaariga ah ee SNM ay sameeyaan, taasoo muujinaysa xaaladda iyo qaabka ay faraha uga sii baxayso. ciidamada naflacaariga ah ee SNM ayaa waxay si toos ah ugu jiraan maalmo adag, maalmo aysan u hayn jawaab tillaabooyinka ay qaadayaan iyo maalmo ay adag tahay in ay dareemaan go'aanadooda iyo sidoo kale waxyaabaha horyaala. ciidamada naflacaariga ah ee SNM waxay ku jiraan maalmahoodii ugu adka waxayna u muuqdaan in si walba ay u fashilmeen. Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Nuux Taani oo ah ragga ugu sareeya naflacaarigan SNM ayaa iyagu iskhilaafsan. Muuse Biixi waxa uu weli ku adkeysanayaa in uu xilka ka qaadayo Nuux Taani walow xaaladiisa caafimaad ay hadda soo hagaagayso, haddana kama tanaasulin dhammaanba waxyaabihii carada ku sababay ee sokorta ku kiciyay, taasoo muujinaysa in nidaamka naflacaariga ah SNM si walba uu iskaga soo horjeedo oo u fashilan yahay oo u dhibaataysan yahay isla markaana aysan jirin wax wanaag ah oo uu soo wado. naflacaarigu waxa uu qaadanayaa go'aanadii iyo tillaabooyinkii ugu habboonaa, waxaana si toos ah u miilmarinayaa wax walba oo wax ku olah oo ay doonayaan in ay deegaanka ku baabi'iyaan, balse waxaa hortaagan xaquudirka oo ah libaaxyo aan la hor istaagi karin isla markaana muujinaya dhabar adayg iyo sidoo kale in ay yihiin rag soo jeeda oo helan. naflacaariga SNM si walba ay u fashilan yihiin, si walba ay u guuldareysteen, si walba ayayna ugu dhibaataysan yihiin gudaha deegaanada SSC. xaquudirka SSC waxay u muuqdaan inay ku jiraan maalmo qurux badan, maalmo ay isdifaacayaan, maalmo awoodooda ay soo bandhigayaan iyo maalmo ay madaxa ka jarayaan sargaal walba oo SNM. waxaa maalmihii u dambeeyey xaquudirka SSC ay si toos ah nolosha u dhaafiyeen isla markaana nafta uga jareen xubno ka tirsan saraakiisha SNM iyagoo muujiyay dhabar adeeg iyo sidoo kale qaabka ay ugu heelan yihiin in wax walba oo dhinacyadaas ay doonayaan ay sida tahay ay u meelmarsadaan. xaquudirku waxay u muuqdaan in lagu jiro xilligii ugu habboonaa ee la qaadan lahaa tillaabooyinka iyo go'aanada tooska ah isla markaana la meel marin lahaa wax walba oo la xiriira xaaladda iyo wax ka qabashadeeda. deegaanada SNM ayay u muuqdaan inay ku jiraan maalmo ay si weyn dadkooda u niyad jabsan yihiin ayna ka fakarayaan jabka xoogga leh ee si walba u soo gaaray ciidamadooda iyo qaabka ay uga bixi karaan. Nuux Taani taliyaha ciidanka militariga maamulka SNM wuxuu ku jahwareersan yahay sidii uu qancin lahaa Muuse Biixina shaqada ugu badan ee uu gacanta ku hayahay waa xilka qaadistiisa. taas ayaana mar kale waxay fursad siinaysaa ciidamada xaquudirka SSC waxayna muujinaysaa sida xaquudirku ay uga awood naflacaariga SNM. waxaa sidoo kale dhinacyadan ay muujinayaan tillaabooyinkoodu in la joogo xilligii ugu habboonaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira isku dayadooda iyo sidoo kale qaabka ay doonayaan in ay deegaanada iyo dadkaba u sii maamulaan. si walba ayay xaquudirku u qaadanayaan go'aanadooda iyo tillaabooyinkooda waxayna muujinayaan in ay mar walba heegan u yihiin oo u taagan yihiin tillaabooyinkooda, taasoo sidoo kale barnaamijka soo dhigaysa caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dul hoganaya iyo sidoo kale sida ay mar walba ugu mashquulsan yihiin in ay meesha ka saaraan naflacaarigan SNM iyo inay deegaanadooda ka sii howlgalaan. xaquudirku waxay sidoo kale u muuqdaan in si walba ay u jabiyeen naflacaarigan SNM iyo tillaabooyinkooda isla markaana waxa ay ilaa iyo hadda dhaqan geliyeen ujeedooyin kala duwan oo la xiriira in la
la dhiso maamulka SSC Khaatumo iyo sidoo kale maamulka tooska ah ee dhinacyadu ay tilaabooyinka u qaadanayaan xaaladaha gaarka ah ee taagan iyo culaysyada dul hoganaya dhinacyadan ayaana waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa marnaba aan la dafiri karin iyo tilaabooyin u muuqda inay yihiin kuwa si toos u taabanaya xaaladaha iyo sidoo kale wax ka qabashadooda culaysyada iyo caqabadaha gaarka ay wajahayaan ayaa waxay u muuqdaan in ay saameyntoodu tahay mid aan marnaba la iska indhatiri karin saameyntan ayaana muujinaysa in ay dhinacyadu awood iyo karti iyo sidoo kale baaxad dheeraada la soo bixeen dagaalku waxa uu hadda qaadanayaa waqtigeedii ugu horeeyay saacadihiisii ugu horeeyay ee dagaalkan lagu jiraa waxaase weli dhinacyadu ay qaadayaan tilaabooyin ay doonayaan awoodooda inay ku kordhiyaan isla markaana rabitaankooda iyo sidoo kale wax wada lahaanshiyahoodaba ku meel mariyaan caqabadahan gaarka ah iyo culaysyada kala duwan ee dul hoganaya ayaa waxay yihiin kuwo marnaba aysan ka jawaabi karin dhinacyada nafl caariga ah ee SNM isla markaana waxay u muuqdaan in si walba nafl caariga SNM ay u fashilmeen tilaabooyinkan iyo go'aanadan gaarka ah ee wajahayaan ayaa waxay yihiin kuwo saameyn dhinacyo kala duwan yeelanaya caqabadahoodu waa kuwo isdaba jooga dhibaatooyinkoodu ma kala haraan mana kala dhamaanayaan si walba ayayna fashilka u dhex taagan yihiin musabixi hadda waxaa lagu qasbayaa inuu iscasilo mucaaradka ayaa hub aruursanaya jifooyinka ayaa si walba isku hubaynaya dhinacyada ayaana qaadanaya go'aamada ugu habboon waxaana ay ka dhigan tahay in xilligii ugu muhiimsanaa meesha laga saaray nafl caariga SNM isla markaana waqti muhiima dhinacyadu ay hor istaageen oo ay yiraahdeen nafl caari maya waxayna sidoo kale tani banaanka soo dhigaysaa caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dul hoganaya dhibaatooyinka gaarka ah ee hadda dul taaganaya waxay yihiin kuwa si walba u fashilinaya xaaladaha iyo wax ka qabashadooda sidoo kale tilaabooyinkan waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa saameyntoodu ay tahay mid aan la dafiri karin meesha laga saari karin caqabadahooduna ay yihiin kuwa banaanka soo dhigaya tallaabo walba oo la qaadayo sidoo kale dhammaanba nafl caarigan nidaamka SNM iyo tilaabooyinka ay wajahayaan ayaa waxay u muuqdaan in ay saameyn ku yeelanayaan xaaladda deegaanka waxay hadda doonayaan in ay nabaad guuriyaan inay dhirta baabi'iyaan inay guryaha madaafiic ku garaacaan in ay dadka waxay dili karaan dilaan isla markaana si walba ay saameyn ugu yeeshaan guud ahaanba xaaladda deegaanada SSC balse xaqudirarka SSC si walba ay u diidan yihiin isku day walba oo nafl caariga waa ay baajinayaan way joojinayaan meesha ayayna ka saarayaan taasoo muujinaysa kal adayg raganimo iyo sidoo kale adayg marnaba aan la hor istaagi karin nafl caarigu si walba ayay u malmarinayaan guud ahaanba tilaabooyinka gaarka ah iyo caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan iyagoo si toosa banaanka u soo dhigay tilaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aanadooda u muuqda inay yihiin kuwa aan la hor istaagi karin si walba ayuu u fashilmay nafl caarigan iyo go'aanadiisu waxayna u muuqdaan in gebi ahaanba meesha laga saarayo caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay wajahayaan iyadoo sidoo kale la meel marinayo tilaabooyinka ugu habboon iyo go'aanada wax ku oolka nafl caariga SNM waa ay fashilmeen waa ay guuldaraysteen waa la jabiyey waa laga adkaaday waa la soo afjaray waxayna u muuqdaan in maalmo adag oo jab ah ay madaxa la gelayaan si walba ayay u fashilmeen si walba ayay u dhibaataysan yihiin si walba ayaa musabixi iyo kooxdiisu ay ugu fashilmeen tilaabooyinka ay qaadayaan taasoo muujinaysa in xaqudirarku ay guulaysteen ay yihiin cidda guusha iska leh iyo sidoo kale cidda rasmiga ah ee guushu ay maanta dul hoganayso wararka ka imaanaya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in dhaqaaqyo culus ay saaka ka soconayaan laba aag oo kamid ah bariga iyo galbeedka duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhaqaaqyadan culus ayaa laga dareemay labadaasi aag waxaana halkaasi gaaray ciidamo fara badan oo kamid ah SSC Khaatumo kuwaasi oo soo gaaray magaalada Laascaanood habeenkii xalay ahaa ciidamadan fara badan ayaa waxa ay ka yimaadeen qaarkood gobolka Sanaag halka sidoo kale qaar kamid ay ka yimaadeen gobolka Nugaal ciidamadan oo wata dabaabadaha iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo aad u fara badan ayaa magaalada Laascaanood soo galay habeenkii xalay ahaa sidoo kale waxa la arkayaa ciidamadan faraha badan iyo sidoo kale gaadiidka dagaal kuwaasi oo xilligan gaaray aagaga bari iyo galbeed ee magaalada Laascaanood xogaha ayaa sheegaya in halkaasi ay Somaliland ka wado dhaqaaqyo culus saacadii la soo dhaafay ciidamadan dheeriga ee halkaasi gaaran ay ka dhigan tahay in dhanka SSC ay iyagana ku jiraan diyaar garow dagaal oo mar walba la filan karo in halkaasi uu dagaal culus ka dhici karo dhaqaaqan ayaa imaanaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay degan tahay xaaladda aagagaasi walow labada dhanba ay dhaqaaqyo culus wadeen dhanka SSC waxa soo gaaraya ciidamo fara badan oo ka soo kala baxay gobolada kala ah Nugaal iyo sidoo kale Sanaag kuwaasi oo soo gaaray magaalada ciidamadan ayaa wata hub aad u fara badan iyo sidoo kale gaadiid dagaal iyagoo qayb ka noqonaya gurmadyada ciidan ee halkaasi gaaraya dhaqaaqyadan ayaa imaanaya xilli magaalada Laascaanood
maalmihii lasoo dhaafay ay ka soconayeen shirar looga arrinsanayo abaabul dagaal iyo sidoo kale istiraatiijiyadda dagaal culus oo halkaasi ka dhaca waxaana mar walba halkaasi xoguhu ay sheegayaan inuu ka dhici karo dagaal culus oo dhexmara ciidamada SSC Khaatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka Somaliland ee halkaasi isku hor fadhiya dhanka kale tana garaadka guud ee SSC Khaatumo garaad jaamac garaad cali ayaa afka furtay isagoo banaanka keenay xogo culus garaad jaamac garaad cali garaadka guud oo ka qayb galayay kulanka jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolada SSC Khaatumo ee Sool Sanaag iyo Cayn ayaa shir weyn ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana gabagabadii shirkaasi banaanka keenay xogo culus garaadka guud ee SSC Khaatumo garaad jaamac garaad cali isaga oo eedeyn kulul u jeediyay dowladda federaalka garaadka guud ee SSC garaad jaamac garaad cali ayaana ka qayb galay shirkaasi waxaana ka soo baxay eedeyntan loo jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna madaxda dowladda dhexe ka dalbaday in ay hagardaamada ka daayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed garaad jaamac oo gabagabadii shirkaasi saxaafadda la hadlay ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay Somaliland garab ku siisay dagaalka ka soconaya duleedka Laascaanood sidoo kale caalamka ay isaga aadisay dagaalka lagu hayo magaalada Laascaanood iyaga oo dafiray xasuuqa shacabka ee halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale gaboodfalada sida uu hadalka u dhigay garaadka Soomaaliya xukuumadda maanta jirtayaana nalagu hadlayn afka ka dhowran maayo waxay Somaliland ku garab siinaysaa duqeynta ay ka wada Laascaanood ayuu yiri garaad jaamac garaad cali sidoo kale garaadkan ayaa sheegay in caalamkii ay uga dacwoon lahaayeen Somaliland ay ka hortaagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku doodaysa inay xal u keenayso xiisadda Laascaanood sida uu sheegay garaadka waxaan ogahay in adduunkii dhaleecayn lahaa waxa Somaliland ay Laascaanood ka wado iyo gaboodfalada ay ka hor istaagsan tahay dowladda federaalka iyagoo dhahaya xalka intaasi annaga ayaa hayna waxaana cadeynaya in wax xal ah aysan hayn dowladda dhexe ayuu yiri garaadka guud ee SSC garaad jaamac garaad cali sidoo kale garaadka waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dagaal kala hortagi doonaan haddii ay cadaato inay wax ka wado qorshaha dalka lagu kala goynayo ee Somaliland la jirsato garaad jaamac wuxuu cadeeyay in haba yaraatee wax wada hadal uusan u socon iyaga iyo Somaliland sidoo kalena aysan arkin xal ay wado ama ay raadinayso dowladda dhexe madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka waxaan leeyahay idinka la idin dhaariyay ilaalinta midnimada Soomaaliyeed waad ka soo bixi weyseen ee dadka halganka ku jira ee midnimada raadinaya halu goynina ayuu yiri garaad jaamac garaad cali